waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland halkan waxaanu maanta ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ay fadhiyaan guddiga guud ee beelaha Garxajis uqaasha iyo mustambeedka gudoomiyaha guud iyo suldaanka guud ujeedada shirkaygan wuxuu daaran yahay laba arin ama laba qodob oo ahaa shirkii labada beelood ee habar jecelo iyo Garxajis iyo arinta nabadeynta iyo shaqaaqada Celefoyn anigu waxaan jecelahay inaan ku horeeyo ama ka hadlo arinta shirka labada beelood ee ay gogosha dhigtay beesha habar jecelo oo ay ku mahadsan tahay dhawaana ay iclaamka galiyeen ama ay soo jeediyeen in shirka muddo kooban dib loo dhigo si wax looga qabto oo loo hormariyo arinta nabadeynta Celefoyn arinta waa la qaadanay waa ku soo dhaweynaynaa waa ku baarigaynaa waa ugu mahad celinaynaa arinta Celefoyn waa wada jir baa u qabananaa arintaas dib u dhigistana waa ku waafaqsanahay inta laga hormariyo وانا كسر دوينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله. anigu waxaanu hadaan nahay odayaasha iyo salaadiinta iyo gudoomiyeyaasha iyo dhamaan beeshayadan Garxajis waxaan diyaar u nahay inay arinta in badan baa la waday oo cid waliba gashay inay Garxajis iyo habar jecelo galaan oo aanba baxaan oo meeshay wax ka dhaceen tagaan oo waliba talooyin kale oo aan imika halkan ka sheegin baan ka soo jeedinaynaa meesha hadii lagu galo waxba ku dhamaan waayaan iyada lafteeda in la change gareeyo la bedelaa meeshay ku jirtaa marka waxaanu diyaar u nahay arinta labada raas ee naga dhashay ee dalkan ka dhashay ee arrinkoodu dhamaan waayay inaanu ku galo horta sidii hore loo galay saluug kuma jirin oo de Soomaaliland oo dhan baa gasho culimo gasho cid walba way gashay ilaahay waxba ku dhameyn waa ilaahay horta waxaan ka baryaynaa oo aanu ilaahay habeen iyo maalinba ka baryaynaa inuu arrintan naga soo xidho maantana waxaan ku dayaynaa deynmayna waxaan ku dayaynaa inaanu arrintii aanu si lafa u gallo oo aanu la xamiye dam u gallo oo labadayadii reer la dhex gali jireen oo jirnay dadka kale ha galaan aanu annagu gallo oo runta isu sheegno oo meeshii wax ka xun baan gufayno arintaas aan anaguna diyaarunay sidaas aan ku heshiinay sidaas aan diyaarunay ummadda kalena sidaa nagu ogaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين marka hore ilaahay baan subhanahu wa ta'ala u mahadnaqaynaa marka labaad halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku wajahan degmada Celefoyn iyo agagaarkeeda oo dhan kaas oo ah shaqaaqada labada reer dagaalka soo jiitamayay ee dadka ehelka walaalaha ka dhaxeeya inaanu leeyahay walaalayaal intii inaga dhimatay ilaahay ha u naxariisto intay naga dhaawacantayna ilaahay ha inoo boogadhayo walaalayaal wax badan baynu isku celcelinay inaanay danteenu ku jirin in dagaalkaasi socdo ilaahay baan idigu dhaarinay hala soo afjar colaada xabad joojin hala sameeyo degdeg ha loo joojiyo labada dhinacba marka labada dhinacba waxaan leenahay xabadda hala joojiyo xal inooguma jiro nabad baa danteenu ku jirtaa walaalnimay danteenu ku jirtaa ehelnimay danteenu ku jirtaa annaguna waxaanu diyaar u nahay dhammaan labada beelood ee labada raas ee arintaas ka dhaxaysa ay ka dhasheen inaanu horena waanu galay haddana u tafaxaydano sidii aanu idila dhamaystiri lahayn si loo helo nabad waarta marka waxaan diga codsanaynaa labadiina dhinac joojiya xabadda ilaahay ha laga boqo nabad ha loo soo noqdo ilaahay toobad ha la weydiisto naxariista ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha lagu soo noqdo joojiya xabadda wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الإلهي بمهدله مركه هراء رنتي وحان معركتي مدشن شركة شرايد مناسبات دي عن أقبلني وحكاها لي وقاشا قدوميها قددا أيا انتي أي موها عن وطلق لي كهدلي قصي دي nuxurkeeduna waa intaa halkaa la idinka soo jeediyey haddaa saxaafadda tihiin wuxuun baan aniguna shirka ku ururinayaa inoogu soo xidhayaa shirka ku xidhayaa waxa weeye
intaasaa talada iyo waanada iyo waxsheeguba naga yahay iyo aqbalaaduba wixii ka dambeeyana dee wixii arrinaa labada beelood baa sii geli doona faahfaahinteeda iyo munaasabadeeda marka aad iyo aad baa u salaamantiin dhammaanba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu shirkuna saasuu inoogu xidhay